بسم الله الرحمن الرحيم داوديال كسو دواada janaalkeeni Moleman Channel oo aad uga barateen ishara ku saabsan Photoshop iyo video editing-ka. Waxaan maanta casharkan ku soo qaadan doonaa sida ugu fudud aad qoraal u dhigi lahayd shay gadaashiisa. Tusaale ahaan sawirkan waxaa u baahan tahay inaad qoraalkaas dhigto qaybta dambe ee sawirkaaga. Waxaan ku tusi doonaa qaabka ugu fudud aad ku saari lahayd gadaal. marka la ku soo dhawaada daawadayaal ugu horreyn waxa u baahanaa inaan soo furno barnaamijkeena Photoshop waynu soo furmayaa sida aragtaan waa inoo soo furmay waxaan u baahanaa inaan sawirka sameyn lahayn soo gelino waxaan tagaynaa file open file already sawir ayaa diyaar inoo ah aniga midkan inoo soo qaad sawirka marka uu soo furmo sidaan ayuu noqonayaa waxa ugu horeeya aad sameynaysa ayaa wuxuu yahay qufulka ayaad ka qaadaysaa ama looga ayaad ka furnaysaa double click ayaad siinaysaa okay ayaa dhahay qufulkii wuu kaaga furmay sida ujeedid marka waxaan rabnaa inaan qorno qoraalka aad gadaal saari lahayn okay text ayaa soo dooranaysaa waxaad ku qoraysaa wax alaala waxaad rabtid tusaale inuu qor Lionel Messi farta waa inuu weyninaysaa adigoo taabanaya control A oo highlight ah textigana inuu buuxi kalarka isna inoo bedel white inooga dhig inooga dhigtid waxaa laga rabaa inaad ku aadiso qoraalka meesha ugu habboon aad leedahay meeshaas meel kaga habboon ma jirto aniga meeshaas ayaa ku dhaaftay bacdeen stepka xiga wuxuu noqonayaa inaad sawirkii copy ka samaysid ama duplicate qaab fara badan ayaa ku samayn kartaa waxaan hadda sameynaynaa sawirka aad right click leedahay right click marka aad duplicate ayaa taabanaysaa okay leedahay sawirkii aad copyisay waxaa ka kormarsiinaysaa layerka textiga wuu qariyay hawlwelin sawirkii qoraalkaaga wuu ka qariyay waxaad hadda sameynaysaa eriyada ama qaybta aad rabtid inuu qoraalka gadaal ka maro ayaa maxana select gareynaysaa qaab fara badan loo select gareeyo ayaa jiro waxaa jiro quick polygon jiro laser tool ayaa jiro aniga hadda waxaan isticmaalayaa quick laser tool inuu soo dhaweey si aan qalad inooga dhayn highlight gray soo dhaweey si aan u sahno qaladaadka meesha uu ku jiro meelo yar yar ayaa jiro meeshaan oo kale sawirkii highlight waa saarnay marka waxaan u baahannahay inaan sameyno qoraalkii gadaal inooga qarsamay inaan soo bixino waxaad tagaysaa layer waxaad ka dooranaysaa layer mask waxaad kasii dooranaysaa refill selection daawadayaal sida u jeedin qoraalkii gadaal ayuu ka soo muuqday sawirkii ayuuna ka dib maray weliba si qurux badan waa hagaajin kartaa siska u dheerayn kartaa martana waa ka bedeli kartaa aniga marka sidaas ayaan ku dhaafayaa waxaan rajeynayaa inaad fahantay oo aadna samayn karto insha allah intaan dib ugu kulmi doonno casharka xiga waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu